السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا muuqaaladeni taxnaa inoo ahay oo aynu ku baranin Excel full course qaybtiisii shanaad. Qaybtan waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano cell adjusting cell size, insert columns, insert rows. wax loo yaqaano cell size ayaan ku bilaabeynaa sida aad u hagaajin lahayd sizeska Excelka. laga yaabo meeshan inta aad qabato oo ajiido inta aad qabato ajiido marka waxaa laga yaabaa inaad haysto macluumaad fara badan oo meeshan kugu jiro. hadda meeshan waxbaa noo qoran ma arkino, marka si aan u aragno waxaan ku qasbanaa marka inaan inta jiidno kuwa kala qarsan yihiin si lamid ah inaan jiidno kuwa kale si lamid ah inaan ku sixjino. marka si taas oo waqti badan uusan meesha kaga lumin kor meeshaas aad ku dhufato meeshaas uu korayso markaad ku dhufato kaasaha uu noqdo saas uu noqdo calaamadaas uu muujiyo asaga ayaa ku dhufanay kadib inta kale si automatic ayaa isku hagaajinaya meeshaas marka waqti ma ka lumay. intaas marka waa adjusting cell size. dhanka kale waxaan ku arki doonaa wax loo yaqaano sida loo soo geliyo column cusub si aad soo geliso waxaa sameeyay meeshan taagan dad column waa kuwan oo kale qoraal meeshan karti inaad soo geliso oo yacni waa dilantay intaan kalena maratid inaad tirtirto meeshan wax cusub aad soo gashato maxaa sameeyay inta ay right click qoonay kadib insert ayaa dhig insert asaa fahmay meeshan aad taagant inuu column yahay Excelka asaa fahma. waxaan arkaynaa column cusub meeshaas waxaa qoran kartaa waxaad rabtay. dhanka kale inta ayaan u baahan inaan soo gelino column cusub waxaan sameeynaa right click dhina insert ayaa dhig inta ay u baahan inaad soo geliso tusaale kale meeshaas kor ugu dhufanay kadib inta ama kartaa inta marka imaato insert sheet columns ayaa fahmay labadaas dhinac ayaa laga soo gelin karaa. dhanka kale waxaan ku arki doonaa sida loo soo geliyo rows marka si aad soo geliso tusaale kale meeshan qoraal ayaa rabtay inaad meeshan geliso oo kulina aad tirtirin si taas aad u sameyso waxaad sameyn kartaa meeshan aad taaganta oo kale tusaale martida rabtay inaad wax soo geliso asaga ayaa ku dhufanay kadib right click ayaa dhig insert ayaa dhig asaa fahmay inuu row yahay meeshaas kuwa xariiqsan waa row asaga ku dhufo kadib lambarka 8 ayaa rabtay inaad wax geliso marka meeshaas waa ku banay qoraalkii aad doonto ayaa ku qoran kartaa. casharkeeni shanaad oo aynu ku baranayay sida loo saxo cellska size-kooda si lamid ah si loo soo geliyo columns iyo rowsba intaas ayuu ku egyahay. wixii aad aragtay qabta nagu reeb qaybta commentiga. haddaad ka heshay muuqaalkan like saar si aad ula socoto muuqaalada kale ee taxanaha ah subscribe.